qaar ka mid ah dadkii dhawaan ka soo barakacay deegaanada ka xandhaala iyo dacdheer oo dhaca bariga gobolka Galgaduud ayaa hadda waxaa halkaasi ku haysataa dhibaatooyin aad u xooggan oo ay ka mid yihiin biyo la'aan iyo xoolihii oo ka dhamaaday waxaana xaalkooda dadkaasi ka damqaday qaar ka mid ah qurba joogta ka soo jeeda deegaanadaasi iyadoo maanta loo sameeyay biyo dhaamin ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Cabdi Axmed oo ka mid ahaa dadkii u gurmaday dadka halkaasi ku dhimaataysan waxa jooga cilida jooga hadda waxaan joognaa muddo adu 2 saacadood meelahaas waan joogi laanahay geed aan galnacda ma hayno dadka marka noloshooda dhammaysaas maxaa u maleynaysan dad iyo waa soo dadaasheen waxa ay noo soo dhibteen waa soo gaarsiin 10 loor oo biyaha soo gaarsiin shantii ugu horeysay halkaan ku shubnay shantii kale meel kale halkaan waxa la yiri bacun waan ugu yaryihiin baraaga loogu shubaya meel baraaga ay u qodan oo dadka qarabada ay leeyihiin hadda marka waxa ila tahay waa bilowgii hore ila tahay marka waxa emergency ahaan uga soo gaarsiiseen waa hartay tii kale waa hartay oo dadka weli roobama diin dhanka kale waxa iyaguna dareenkooda cabiray qaar ka mid ah dadkii maanta biyo dhaaminta loo sameeyay waxayna ka mahad celiyeen deeqdaani la soo gaarsiiyay biyaha oo jaaliyadu noo keeneen oo nagu sirino ka culimada oo u mahad celinayna 14 iyo 100ka niinka biyahaas noo keenay caawinada iyo taageerada qeyr Allah siiyo waa mahadsan yihiin annaka waxa weeye meel aan ku hoyno iyo meel aan hadda roobka ka okorsano ma haysano deegaan iyo xoolaha waa ka soo kacnay waxaanu leenahay inay si degdeg ah oo maaragtay waqti roob baa lagu jira baqo iyo raashin iyo hadaal ku wixii loo heli karo in la ku taakulo annagu waxaan ay barakacayaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa walaalihii dhibaatada meeshan ugu haysata ka daqnaday arkay ilaahay xaqiisa mahad ka gaadhaan leenahay Cabdi Axmed oo dad soo wakiisheen oo 10 loor biyo u soo dhiibtay 10 loor oo biyaha waxaan ka soo qaadnay deegaankii waa soo raacnay haddana waxaan keenay laanshir 5 loor oo kamid ah Ali Maxamed Nuur telefishinka on cable gaalkaayo